wasiirka howlaha guud iyo guriyinta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay dhismaha suuq cusub oo casri ah oo laga hirgelinayo goob hore u ahayd geerasho lagu hagaajiyo gaadiidka oo ay adeegsan jireen dad shacab ah. golaha deegaanka ee degmada Burco oo horkacaya duqa degmada Burco Maxamed Muraad iyo xogayaha dawladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh ayaa ugu horeyntiiba sharaxaad ka bixiyay goobta laga dhisayo suuqa cusub ee casriga ah. 27 ka sanadood wadanka aynu ku jirnay rag meeshii gacanta ay ku hayeen iyadoo sidoodii loogu yimi mahad beelay waa idin mahadnaqeynaa waxaan u mahadnaqeynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raaliha ka noqday wasiirka hawlaha guudo arrinkan si qeyral macquul noola shaqeeyay markaan u sheegnay suuqii saddexaad in doorashadii ay hakisay isla markaana maadaama laga yaabo in doorashadii golaha deegaanku sanadka dambe dhacdo 12 bilood ka harsan tahay 12 ka bilood inaan si hirgelin waana dad cusub iyo xildhibaano cusub iyo maayir cusub aan la koosan 12 ka bilood ku dhamaatana waa u halganay wasiirku waa nagala shaqeeyay waana ku mahadsan waa suuqii saddexaad ee Burco ay filaysay in loo dhaqaajiyo ganacsatadu labadii suuq hore waan ku guuleysanay dawlad hoos ahaan inaan dhisno oo ay maanta ay shaqeeyaan kana waa meel loo baahnaa oo runtii aad arkaysa indhahaaga waxa dhex yaala oo ummadda iyo bulshada ku dhex nool ganacsatada iyo meheradaha waxaas ay markuu roobku doo ay ka dilaacayeen waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta ka dambeysay insha Allah ta'ala waxa weeye bilicdeeda iyo kor u qaadisteedu kor bay u sii socotaa marka runtii goobtan muuqaal ahaan maanta ka muuqata sida waag tahay insha Allah ta'ala waxaan ku dhagax dhigaynaa suuq ganacsi oo weyn maadaama ay xuduntii magaalada tahay bilicdeedina aynu doonano kor u qaadno dadkii ku ganacsan jiray goobtan laga raray ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay moolka cusub ee laga hirgelinayo goobtii geerashada u ahayd dadkii gacanta ku hayay ee ku noolaa geerashka ku noolaa ayaan nahay dadka geerashka gacanta ku haya haddana ka warramo waxay ahaayeen nimankii asnam ee mujaahidiinta ahaa u sameeyay jiray dadka gaadiidka iyaguna makaaniinta ahaa anaguna waxaanu ahay kuwa xabad ridii ilaa maalintii la soo galay dalka ilaa maanta saasi gacanta ugu hayeen dawladda xukuumadda aan gacanta ku wareejiyay ganacsiyaasha waxaan ka cadaynaynaa waqti dheer oo 22 sanadood gacanta ku haynay haddaan ku haynayna waxaan la sugaynay munaasabad qaali ah oo aan ku wareejino ummadii la ugu wareejino maanta waxaan la kulnay nasiib wanaag iyadoo dhisme mool la yiraahdo oo bilicdii magaalada soo saaraya ayaanu maanta ku aqbaleen wareejino waxaanu ku wareejinay maanta wasiirkii hawlaha guud madaxdii dawladda hoose oo dhameystiran waxaan ku qanacsanahay sidaanu maanta anagu ugu wareejinay in loo dhiso oo magaalada loogu qurxiyo wasiirka howlaha guud iyo guriyinta Soomaaliland mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa sheegay habka ay u qorsheeyeen in loo dhiso suuqan cusub waxaanu yiri injineer wasaaradda oo arrinka eegaya dhismaha balaankiisina sameynaya sidii agreementka lagu galay dawladda iyo dawladda hoose iyo shacabku ay ku galeen moolka hore lagu galay agreementkoodii in la fuliyo oo sidii ahaa loo fuliyo kula dardaarmaya suuqan cusub ayaa noqonaya kii saddexaad ee nuuciisa ah laga hirgeliyo magaalada Burco isagoo wax badan ka tari doona bilicda magaalada Mustafa Cismaan magaalo warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Burco.